walaalayaal waa walaalkiin waad u xiisteen baan u maraynaya maalmahan video maana soo dhigin mashquulka ayaa iska badnaa mashquulka bacdi maanta videogan ayaan horaan duubay laakiin ayaanta maanta ayaan waqti u helay sidaan inuu soo galin lahaa videogan aad ayuu muhiim u yahay waxa weeye triceps ama muruqa xagga dambe ee gacanta ayuu la xidhiidhaa muruqan ayaad ku dhisan kartaa ma garatay ma muruq waa mise waa laba muruq mise waa saddex muruq wuxuu yahayba maanta waxaas ayaan inii hayaa waxaan jeclaan lahaa inaad ila daawataan waa mahadsantiin familiga wuu soo kordhayaa waa sii badanasaan insha allah welcome soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر دوادة جت في دود AC وأنا جو أحمد ما أنت وحن كهل دونا سيدا مرقية كعنت حاجة دبلودستو سيدا هالكن كاركيسان كعنتي أيام ما أنت كشقيسين أنا وقعد قرينا إن شاء الله كعنت سيابا بدن ayaa looga sameeyaa maanta waxaan hayaa afar exercise waasi waan ugu dhisi doontaan exercise kan hore birta ayaad hore u qaxaynaysaa waxaan isku dayaysaa gacanta garbaha inaad xidid oo ilaalisid inayna dhaqaaqin oo aad meeshooda ku ilaalisid tan waxaad sameynaysaa midkiiba adigu ugu badnaan 8 ilaa 10 reps baa sameynaysaa ama ku celcelinaysaa ma garatay miisaankaaga ku xirantay intaad rabtid inaad qaadid birta muruqa aad ayuu ugu fiican yahay bahalka muruqan xagga dambe ee triceps kala dhaho kan aad ayuu wanaagsan yahay saddex set ayaan ka jarayaa maxaa kaloo ku xijiyay waxaan ku xijiyay kan kale dumbbellka ayaan ku sameynay waayo dumbbellka inta badan uu ka howl yar yahay kuwa kale waayo dhaawaciisu ma badna waayo isaga control gacanta ku control gareyn kartaa beenkiina waad dareemi kartaa markiiba aad ayaa beenka u dareemaysaa waxaad beenka dareemtiina ama xanuunka aad dareemtina waxay tahay inaad si wacan u sameynaysid isku day inaad gacanta dhinaca kale waan tusi doonaa dhinaca kale ayaan ka sameynaya hadeer saad u jeedaan dhinaca kale si wacan uma arki kartaan ayaan u malaynayaa laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan tuso insha allah isku day inaad gacanta xidid markasta aad birtaad wax exercise kaad sameyn doonta hadee laakiin waa inaad isku daydaa inaad birta saad u dareentid xanuunka waxaa inoo dhamaaday reebkii ugu horeeyay waa kan hadda xagga dambe ayaa videoga gadaal ayaan inaga tusayaa gacanta si u soconayso si aad u aragtaan aad u dareentaan waxaan inay tusi rabo mideeda kale markasta focus ka saar waxa dhici karta inay ay dhaawac ka soo gaareen kastoo dhaawaciisu u badneen laakiin markasta dhaawac iska ilaaliya waan ku celceliyaa videoda inta badan haddana dhinaca ayaan ka tusayaa laakiin hasdeynta ninkan ma gacmo waaweyn muxuu exercise naga waxaa isna like aanu hadaraan bilaabayaa ayaa ila tahay 4 bilood ka bacdi marka weight lose gareeyay hadar ayaan ina muruq xoog weyn dhisto ayaan bilaabayaa aragta marka wixii waqti bay qaadanaysaa insha Allah suuna aduu ila soco videoga daawo videoyada soo socda daawo insha Allah waa arki doontaan oo muruqyo waaweyn aan idin sheegaba tana aad bay u wanaagsan tahay asuunaas aad dareemi kartid intuu xanuunku muruq kasta birahan oo dhan waxa dareemaysaa beenka iyo waxa ay birtu wadato way markaa dareentay beenka waxa faa'iidadiisa ayaad arki kartaa si dhaqso ma garatay kan wuxuu aad ugu fiican yahay gacanta iyadoo dhanba forearms ugu fiican yahay weightka waxa ku xiranta weightka dan waa yareeyay waa aragtaan waayo waxaan rabaa reps badan inaan ka jaro ama ku celceliyo waxaan kaloo inay wadaa wax kaloo
haye dee maxaad u malaynaysaa ma ku caawinayaan exercise-yadan maanta idin tusayo haddii ay tahay ila soo wareeg kana waxaa weeye muxuu ahaa mashiinka loogu talagalay in tricepska lagu dhisto isagu waad fadhiisanaysaaba waa isaga ku cajimaynaya garata waa kaasaan ayaan kusoo dhammaynaynaa kaas ayaa ugu dambeeya exercise-yadeena maanta kaasna waxaa isku dayda toon inaad ka jirtid insha allah anu maaragta naftayda mar walba istaa taabanaya markaa xanuunka dareemaya ya. Assalaamu calaykum, salaam ya walaalay.